السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان هو حق عافمات برامجكينا حق عافمات maanta waxaan ku soo gudbi doonaa mowduuc muhiim ah kaasi oo ah shan waxyaabood oo mamnuuc ay tahay inaad suubiso raashinka markaad cunto kadib ka hor intaan barnaamijka aan guda gelin haddii aad nagu cusub tahay kanaalka xog caafimaad ku soo biir oo subscribe noo saar ka mid noqo saaxiibada mar walba hela barnaamijyadeena cusub. qodobka ugu horeeya barnaamijka waa isticmaalka shaaha raashinka markaad cunto kadib. baaritaano la suubiye ayaa caddeynaya in isticmaalka shaaha raashinka kadib ay yareyn karayso maadada loo yaqaano ironta, taasi oo marka dambe qofku ku keenaysa dhiig yari. caleenta ku jirta shaaha ayaa ka kooban maadooyin ka hortaga in la nuugo maadada ironta, maadadaas oo mas'uul ka ah suubitaanka dhiigga. qodobka labaad oo ka soo qaado doona barnaamijkeena waa cabista ama isticmaalka sigaarka raashinka markaad cunto kadib. sidaan ognahay raashinka markii uu tago caloosha ama mindhicrada oo la burburiyo, mindhicrada ayaa nuuga wixii nafaqo ah ka soo baxa. haddaba bal qiyaas haddii aad sigaar cabto siduu xaalkaadu noqon. maadada ku jirta sigaarka ee loo yaqaano nikotiinka ayaa si fudud looga nuugi doonaa mindhicrada. maadadaasina waa maada dadka ku sababta kansarka. marka waxaa si fudud mindhicrada u nuugi doonaan oo dheecaanka la nuugayo oo dhiigga la raaci doonaa maadada loo yaqaano nikotiinta, taasi oo ah carcinogenic ama kansarka waxyaabaha keena. haddaba iska ilaali inaad isticmaasho sigaarka raashinka markaad isticmaasho kadib, iskana dhaaf guud ahaan maadaama uu wada daran yahay caafimaadka. qodobka saddexaad ee barnaamijkeena ayaa noqon doona qabaysiga xilliga raashinkaad isticmaasho kadib. sidaan ognahay xubnaha dheefshiidka ayaa marka ay wax burburinayaan sida caloosha iyo mindhicrada waxaa loo soo fasaxaa dhiig aad u fara badan si ay wax burburiyaan. haddaba markii aad qabaysato ayaa waxaa dhici doonta in xididada dhiigga lasoo marsiinayo ay isgeejiyaan oo yaraado, dhumucdooda ay yaraato, dhiig badanna uusan soo aadin halkaas. baaritaano la suubiye ayaa caddeynaya in taasi ay keeni karayso in dheefshiidka qofka uu xumaado. qodobka afraad ee barnaamijkeena waa seexashada wax yar uun kadib qofka markuu raashinka isticmaalo. sida aan ka warqabno bulshadeena ayaa aad ay ugu fara badan tahay inay iska seexdaan xilliyada raashinka isticmaalaan wax yar uun kadib, weliba xilliyada habeenkii oo guud ahaanba sida aan ka simannahay. tani ayaa keeni karaysa ayaa leeyahay khatar aad u fara badan oo ay ka mid tahay raashinka inaan la shiidin iyo cudurro badan oo ku dhaca dhanka caloosha. waxaa laga yaabaa subaxdii inaad ka soo kacdo adigoo xanuunsan oo calool majiir iyo wax lamid ay hayaan, taasina waxay keenaysaa raashinka aan la shiidin ee halkaa ku jira. qodobka shanaad ee barnaamijkeena ugu dambeeya ayaa ah isticmaalka khudurwaadka waxyaabaha khudaarta ah raashinka markaad cunto kadib. baaritaano la sameeyey ayaa lagu ogaaday in aan aad loo burburin waxyaabaha khudurwaadka ah markii la isticmaalo raashinka kadib, balse baaritaanada ayaa soo jeedinaya in la isticmaalo raashinka ka hor si jaanis loogu burburiyo loo helo